وادويتون حاسد waxaan saragnay oo tagay qolada Abu Dhabi waynaga air siinay air base ciidamada ah si wacan bay u dhiseen wuu dhayahay heshiiskii aan la galnay ee 15 ah waa sidiisii waa base-kii sidaan u siinay weeyale wax iska bedelin waxaan kula doon oo dawladana aan u soo jeedinay dekadii waa la dhisay waana la kordhinaya waana sii weynaanaysa halkee la marinayaa waxa aad dekada lagu soo rogay miisaanka badan leh magaaladii dekadii waa in tareen loo dhisaa oo tareen u gudbiya halka la doonayay la geeyo ama waa wadooyin waaweyn oo gaadiid waaweyn mar loo sameeyo marka waxaanu helay fikradii mid ka dhow garoon aan isleeyahay waa ka Afrika ugu weyn baa la dhisay adduunka oo dhan ciidamada iyo shicibka u wada isticmaalaan garoonada marka laga maarmaayo noqotay in garoonkii loo isticmaalo sibil ahaan iyo diyaaradaha madaniga ah oo noqdo international airport isla markaana marka u baahdaan ciidamadu waa isticmaali karaan hadii ay noqoto taasina waxay noqotay horumar weyn oo maanta diyaarad kasta oo adduunka ugu weyn diyaarad kasta oo wax qaado adduunka ugu weyn xataa shuttle-ka loo diro dayax uu ku degan karay garoonka halkaas ay dhiseen waanu ka casleysay kii hore ruushka gebigiisa dib bay u qaadeen adduun yaab la ay galiyeen waanu ugu mahadnaqnaa waa horumar Soomaaliland heshay oo horumar ah insha Allah laba arrin baanu maskaxda ku haynaa inaanu cid u dhakaashana ama inagu haddii isku tiraanu sameeyno haddii dekadu furanto oo 2 sano ka bacda ay dhisanto wadada burca berbera burca hargeysa way xirmaysaa waayo xamuulka jeeray qaranku ma wadaay karo maanta inuu aragnaa inta mashkalada ka dhacda waliba gawaari yar dhalinyaro aan war haynin maalin waxaad maqlaysaa gaari yar oo fikisa ama taxi ayaa gaari weyn jiro 6 caruur oo 20 jir ah ku dhintay bil walba uu xisaabna waxa laga dhintay marka waxaynu u baahanahay in dalka aynu iska furno xagga dusha oo burciya hargeysa aynu xiriirno burcana ay gobolada bariga waraabiso culayska iyo dekada iyo rarka iyo wixii ka soo baxay labada wada maraan dalkuna dusha iskaga xirmo priority-ga koowaad waxa weeye si aynu u heli lahayn wasiirka wadooyinka waa fadhiya dhamaantay waa tan ugu weyn culayska weyn ee ugu soo socda waxa weeye haddii dekadu marka ay furanto ee diyaaradaha cargo inay yimaadaan waxay ila tahay inay dariiqa hargeysa burco inaan noqonayn meel passenger ku mari karo waxaynu u baahanahay oo noo qorshaysan oo aynu isugu tagayna ilaa tabarteeda waa ogtayna fikir baan laga rabaa inuu dalka iskaga furo xaggan qoladii oodweyne wadada oodweyne oo jirtay ma aha oodweyne waa wadada qarankii u baahana horena uu ugu baahan yahay marka xilka had iyo jeer saaraan oday kasta oodweyne wuxuu yiraahdaa bismillaahir rahmaanir rahiim maxaad sheegtay madaxweynenimada wadadii oodweyne ka war oodweyne ma qaranka oo dhan baa u baahan maanta waxba taala kala xarin baa hadii ilaahay yiraahdo marnaba iyo saxaad baan idin mahadnaqaynaa anoo ku hadlaya magaca waftiga fariintii badan ee soo dhaweynta reebro ee odayaasha madaxweyne waan ku faraxsanahay yimaado waxa ay sheegtay waa fariin reebro afsooligana waa yaqaana gabaygana waa yaqaan duurxulkana waa yaqaana wariyaa waa ninka galbeed soo dhaafo dalka aad soo maro burca kaale wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh